gudoomiyaha maamulka gobolka Jarar iyo waliba maamulada degmooyinka ayaa soo kormeeray daamasha Baka Goomaar iyo waliba sidoo kale beeraha babaca ee laga hirgeliyay mashaariicaha waaweyn ee Baka iyo Goomaar iyadoo ujeedada socdaalkan uu ahaa mid loogu guurgalayay xaaladda guud ee daamasha iyo waliba beeraha babaca sidii ay ku ogaan lahaayeen waxaana ugu horreyntii halkaasi wareysi kula yeelanay gudoomiyaha maamulka gobolka Jarar Mudane Cabdi Cali Mataan isla mar ahaantaasina ka warbixiyay ujeedada socdaalkan uu ku soo maray goobta laga wado dhismayaasha loogu talagalay in la dejiyo qoysaska ee degmada Burqod beerihii loo shacabku u diyaarsaday oo iyagana kan oo adilaad maayo beeran joogana xilligii nacfigiiba oo miro dhalay waxa kale oo markaa aan aragnay ceelal ay shacabku qodeen oo ilaa 20 ceel ah saddex ceel hadda ka hor xafiiska beeraha u fuliyay oo masnoob ay ku isticmaalaan oo khudrad maxaa ugu beeran geedmirood marka hadda kuwan ila 20 kan ceel hadda waxaan ku bilaabaynaa bay muxuu ahaa geedmirood iyo waxyaabaha la yiraahdo xabuubka cash crop kala dhaca ama durba hadii lama dadku lacagta degdeg u ku helo marka runtii sida hadda iga muuqato qabalaha hoodaale oo xogtan ugu siiyeen maamulkii degmada iyo gudoomiyaha centerka waxay noo sheegeen ilaa iyo 200 hektar dhul ka badan hadda inuu beeran yahay hadda beeran yahay ilaa iyo 300 oo kala dhul dhan dhulka hadda biyaha ay fadhiyaan ay sii beerayaan inta yaraan 500 hektar oo ilaa iyo markaan fiirino qaridaas ama laagta faafan inta gaadho waa dhul beereed marka rajo fiican iyagu hadda maanta kelmad ay ku faanayaan waxa weeye gobolkan Jarar maanta midhaha ay cuni doonaan annaga hoodaala soo saari doono dhankoodana waxaan iyana halkaasi wareysi kula yeelanay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka oo dareenkooda cabiray ayaa hadaladoodii ka mid ah bulshadii deegaanka ku nool hadda ka horsay ahayd iyo maanta say tahay noolo wada taariikh ninkii arkay baa garanaya biyo macaan baan u baahnay biyo macaana ilaahay baa ma hadlay maanta waa koon waan haysanaa waxa weeyaan ma taqaanaa dhul beereed kale oo ma taqaanaa khudaartii iyo maaragtay aan ku beeray muuskii iyo saytuunkii saaka uu ka baxay oo babaygii maanta ka ku yaala yaan ka beeranay ma taqaanaa horumarka ballaaran ee maanta la gaaray ee deegaanku gaaray waxa weeyaan bulshadii waagi hore dadkii wada madoobaa saanta ku wada dhaganid ee hoodaal joogi jiray maanta waa dadka ma taqaanaa aragtidooda iyo jidhkooda hadda aragto aad yaabaysa say u ogyihiin ama bilaantooda u ogyahay ilaahay baa mahadle waxaanu leenahay xisbiga duqmaraadka shacabka Soomaaliya Itoobiya wanaaga faraha badan iyo xukuumadeena heerka ay gaadhay waa heer ilaahay lagu mahadiyo oo maanta maartay aan anaguna ugu mahad celinayno beertayda dhex jooga hadda beertu ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin wadarkii si fiican buu noo helay dhaamkii waa noo biyeysan yahay إن شاء الله تعالى وحن كتلة قلنا هذا وحي كدنبية هو والله دني بين النقطة مصنوع لوقف سو جو يلا كلية دقمة يحبون كلية عن كفر لانين قبل كانوا رم كفر لاته هدي لا معمول كا دقمة يك قبل كا ونلص على المالنتي والبابا حوي مدان ساعات مربو النسوق قاعدان سفي عم بين نلص على طريق إلا ولي وقتي لا سميي ساس أي نلص على ده خطرات lagu beero iyo haruur iyo wixii marka uu noo qaadan karo maarta oo gacanta lagaga shaqeysto dad badan buu anfacaya marka asaasa noo qorsheysan beero yaryar oo hoostiisa in la beero oo khudrad iyo waxyaabaha laga sameeyo qachida iyo xabuubka iyo waxyaabaha caynkaas cambaha iyo lagu beero saas ayaan maarta rajaynaynaa mustaqbalka hadii la yiraahdo dhow isku soo wada duuba oo qorshaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qaadatay ayaa mid lagu dhimayo saboolnimada isla mar ahaantaasina looga faa'iideynayo shacabka danyarta laguna doonayo in dalkeenu ka mid ahaado wadamada uu dhaqaalahoodu dhaxdhaxaadka yahay Bashiir Cabbaas telefishinka caalamiga ee STV bartamaha beeraha babaca ee maamulka gobolka Jarar